dee sulaadiintu runta sheegi jireen waxba sheegi jireen dalku wuu seesay dee runta sheega oo isu taga oo wax wixii xaq sheega hadalku wuxuu ku kulli aan taageersanahay hadalka maxamed aadan dacar ee u dambeeyay ah runta sheego runtii baa laga baqay aad baa looga baqay marka siyaasiyiintuna runta kala dhageysan mayso oo kolba ka hadlaya isagu beeraaro baa loo haysanayaa war dadkii runta lagu ogaa runta ha sheego anigu saasaan u qaabsanay dadkii runta lagu ogaayay hadalkooda runta loo qaadanayay dalkanu khatar buu ku sugan yahay dalka runta ha loo sheego oo dadka runta ha isu sheego billahi tawfiiq kulli xasaasiyad baa jirto wax kala oran maayo in yar baan jeclaa inaan idhaahdo madaxaana furan imaka oo qolada deegaanka Hargeysa waxaan farayaa dadkii suuqu ka gubtay ee guryahoodii muranka la geliyay waxaan leeyahay muranka ha gelinina dadka xaqooda ha helaan idinkuna iska ilaaliya waxyaabaha qaarkood baan idin leeyahay ha helaan dadku xaqooda siyaasadda muruga gashayna sida la sheegay runumba ayuunba lagu xallin karaa baan qabaa laakiin waxaan leeyahay marka odayaasha runta ha ka baqanina runta sheega deemka dherbaaxana waan maqlaayay shalay oo taasuna madax dhaqameedku kuma jiraan waa siyaasiyiintun baa laga yaabaa taa inay dhexdooda tahay runta sheega ayaan oran lahaa meel xun buu dalku maraya aynu u ducaynina waxa la yiri suldaankii waxa laga waayay run siyaasigii run baa laga waayay laakiin waxa run dhow anagoo kula deegaana sheegayna maanta runtanu sheegayna waxa weeye hortaabtiyaal maadaama halkan maanta aad fadhidaan idinku aad soo dadab dhigteen runtan idin sheegayna waa maalintiinii maanta runta labaadanu sheegayno anintaa raacinaya waxa weeye madaxweynihii oo muddaxileedkiisii dhammaanin idinkuna inaad ka daysaan gurigaan kuugu soo gelaynaa taasna waa run labaad inta la isku afgaran laayahayna waxa weeye madaxweynihii muddaxileedkii tirsanayoo la leeyahay haddaad soo baxo weyla kadikaan kuugu soo gelaynaa iyo idinkoo laydin odhan waayo waa maalintiinii baanu idin leenahay maanta idinkuna waqtigeeda suga waana laydin dhisayaa qodobka labaadaan raacinaya waxa weeye saaxiibkii cabdiqani markaan soo wada soconay waan soo kaftano waxaan ku yidhi warriyo xaggu meherkuu ka dhacaya suu yidhi ambasador saarwaniyo mala mansoor buu ka fiicnay iyadoo mansoor la geyn lahaa markanu burco joogno abtiyaashee markaynanta doonayaan markiiba dhagteeda waxaa ku soo dhacda ishii burco ma lagu mehernayaa inantaa Hargeysa marka la joogana dee idinku ha iscasuumine waa in Nuux Ismaaciilkii reer gadiidkii laydinka helaayo waa inaad Mansuur u gudubtaan taas waxay keenaysaa rabitaanka oo bulshadii barkhad butun kelmadu maaliyadii ma raacinaya waxay ahayd war madaxweynaha reerkiisa ha ku tirnina kala hadha waxaad moodaa in askaayo wada raaciseen imika bal ka daba imaada Afrika ama dunida caasimadaha waa la wareejiyaa 30 sano ama 40 sano la wareejiyaa 19 markii aynu ka soo doognay dagaaladii Maxamed Siyaad Barre ku qaaday waddankeena ku horay qoladeeda reer Burco cadiifada cirkaana gaarsiisay caasimadii waa laga dhisay hadda tirahaysa imika 30 sanadood baad haysatay caasimadii waa idinka sugaynaa goorma soo celinaysaa caasimadii Soomaaliya waliyahayaga reer bariga saddexda gobol imika qoran waxbay haystaan maakhir gobolkii Sanaag dekedaa loo sameeyay dekedii Mayr bay haystaan dekedii la asfaray way haystaan qoladii reer Laascaanood iyaguna waxaan rajaynaynaa xilligay doonto ha noqotay marka ururada la furo inuu ururka waa bari ama urur la soo baxaa Burco markaa waxay bool position u joogtaa caasimadii Soomaaliland inay martigeliso taa way ka sugeeyaan horta maanta in adeerkay Axmed Xiis Darbaan haddii aniga iyo xirsiba laga soo horreysiyay abtiyaashii ay yidhaahdaan u yeedha Axmed Xiis oo goli deegaanka oo dhan laga soo horreysiyey waa Axmed oo abtiyaasha caloosha u sii daadiyay waa kuwaas waad aragtaa talabaadna waxaan leeyahay waar garasiyo iyo ninka la yiraahdo kale golaha deegaanka ka jooga waardiyaha kalifin ilaa caasimad keeni kari maayo ninkii moogaaba la dhirbaaxayaa dee ha cawarin iyagana oo bada gelin
caasimadda waxaa lagu helayaa cadaalad in wax laynoo qaybiyo cadaalad baa lagu helayaa madaxweyne cadaalad wax inoogu qaybiya baynu u baahannahay madaxweynaha cadaaladda wax inoogu qaybinayana dee waa abtigaayo annagaa wadno waa cabdiraxmaane iskaayo barbartaaginaade oo weliba dadka la leeyahay runta sheega xaqiiq lambar 1 baad ka tahay axmed xiisow haddaad caawa TV-ga istaagto oo aad tahay madaxweyne waad khaldan tahay arrinkaana waad ku khaldan tahay xusbigaagiina waanahay xildhibaankaagiina waanahay dadkoo dhan waad ka saamayn badanaysaa qaada baan ku leeyahay libtaasoo dee faankeenii ku darso laabta iska garaac baan ku leeyahay mid waxaan ka leeyahay saaxiibkii axmedow dee caasimad baynu la doonay inagu madaxweyneynu doonaynaa soo maaha reer burco waxaan leeyahay axmedow caasimadda madaxweynaha ka horeeya farxaana abtiyadii si fiican buu la kaftamay waxaan furayaa dee mar haddii la furo farxaan uu kaftamay anna farxaan waa la kaftamayaa waa farxaanow maaha maanta maalintii aad odaynimada maanta waa maalintii habarhabartee waxa weeyaan dee adeeradaa soo qaatay timekoodii iyo abtiyaashaa maanta raac baan ku leehay xagga abtiyaasha ka soo jeeso mid kalena waxaan ka leeyahay dacaro wuxuu yidhi runta sheega runta la sheegayaa dacaro waxay noqonaysaa xisbiyada waxaa loo furay reerkan soo maaha xisbiyada reerkan baa loo furay markaanu marmar badan baan isweydiiyaa oo ma kaftamo reerahana kuma kaftamo runtii ma hinin afkaa reeraha ku hadli kara laakiin markaan soo doontay maayirnimada ayaa reernimo dee halkaa laygu yidhi ku fadhiiso oo xisbigu waabay ogolaaye reernimo laygu yidhi ku fadhiiso mar dambena xirsi baa wax la siiyoo xisbi baa laga daba keena marka waxaan isweydiiyey reerkuma madaxweyney doonayaan ma xisbi bay doonayaan ma xil bay doonayaan nin xil doonayaaba imankayna waalo siciid sulub la yidhaahdo isaguna xilkiisa ilaashanaya markaa midtaan ku kaftamaya waxa weeyaan waa reerku hadduu madaxweyne doonaayo anu waxaan aqoonadii berigii silaayo la wareersanay kursigu ciyaar laguma helo waa 40 sano 40 years weeyaan haddii xitaa maanta la kordhiyo war hay dagaalamine kursiga in yar baa u jirtaane ku samra way soo marto reero badan bay soo martay taariikhda baa silaayadii ka sheegaya silaayo wuxuu ahaa ninkii isagoo wasiiro tegay ee 84kii magaraysaa da u soo halgamay ee guddoomiyaha soo noqday 2010kii buu madaxweyne ka noqday waddanka daahir yaala laga horreysay daahir yaala maalintii dhawadu hadlay wuxuu yidhi markii Soomaaliland la heshiisiinayay qola dhulbahantaa baan ka soo raacay laascaanood jooga haddana madaxweynaha isaga kaga horreeyey anu mid baan soo jeedin lahaa qaladna ay igu noqotee war waa markaygii joojiya reer galow waa markaygii horta joojiya waa la halgamaya halkan baa lagu jiraa nin baana doonaya reer ma doonaye waa markaygii joojiya oo waxa ku horraysiisaa hebelkaa taagantiina taageertaan hebelkaa u aragtaan inuu ugu dhow yahay 10 kale ka daba keenine haddii la imika waa markaygii wixii loo dhamaa madaxweyne doonaya waa markaygii oo la isdaba yaacaya Soomaad garan markaan waxaan ku soo koobaya war maanta kadib Cabdiraxmaan baa ugu dhow haddii cid noqonayso Cabdiraxmaan waa reerka Soomaa aan waxaan la Cabdiraxmaan taageero baashu halgan bay u baahan tahay mid labaad kaga baxay wax weeyaan reeruhu ma jeclida inay TV-da ka hadlaan oo reero kale bay sii didinayaan waxaan jecelahay reeruhu inay taageerayaal weeyaan xisbiga dhaqaala lagu taageeraa xisbiga dhaqaalihiisa ay bixiyaan oo jeebka ka taageeraan waa hadday daacad ka tahay ina waxa doonaysaa madaxweynihii weynaa yahay dee jeebka laga taageera xisbiga jeebka ka taageera weli dowladeen hoose waxa ka dhiman horta dowladaha hoose golayaasha deegaanka waa odayaashii magaalo kasta inta loo doortay maanta odayaal u ah weli waxa idinka dhiman oo qabiya ah dadkii magaalooyinka ku noolaa ee madaxda u ahaydeen dad maskaxda ka boko cilaajada ku jiray leeyihiin dad xanuunsanaya bay leeyihiin dad yar aan la diiwaangeloo dabka shida bay leeyihiin bal qaybaha sidii ay u xoojin lahaydeen ee golayaasha deegaanku ay dhibaarama noogu samayn lahaayeen waa loo baahay caalamka magaalo walba waxaa ka jira
culimada nimanka culimada rag badan iminka nala fadhiya hay-ada waxay sameeyaan dadka caawiya oo ganacsatada wax ka ururiya oo qaar dadka buko qaabilsan yihiin oo qaar kuwa xitaa macaanka qaba qaabilsan yihiin oo qaar dadka gaboobay qaabilsan yihiin arrintaana waxay iska kaashadaa madaxda degmooyinka iyo ganacsatada iyo culimada dalkeenu inagu ma laha maanta haddii qoyska kugu xigaa baahay oo gaasho oo bakti iyo dumar wuxuu soo ururiya iyo nin jeebkiisa wax ka siiya mooy magaalo qura oo uu ku yaalla xafiis loogu tago gabdho raashin looga soo qaadaa ma jiro taana waxaa loo baahan yahay qaybtaana inaa ku dartaan